waxay sabab u noqotay nolosheeda in ay gacanteeda ku baabiiso isla markaana ay agoon noqdaan 3 caruura oo ay iyadu dhashay waxay abaabushay dambi xitaa aanu xayawaanka mararka qaar ku dhici karin laakiin dadkii yaqaanay yaraanteedii waxay ku tilmaamayeen inay ahayd gabar wanaagsan dulqaad fiican edebteedana si wanaagsan loogu barbaariyay inta laabooyinkan oo kale ay qaadi karaysa waxay noqotay mid argagax ku noqotay dadkii iyada yaqaanay sheekooyinkeeda ayaa laga sii daayay warbaahinta laamaha dambi baarista wadankana muddo dheer ayay ku mashquulsanaayeen sida gunta kiiskan loo heli karay la yaab ayay wax walba noqdeen waxa ay sameeyso wax kasta oo ka fog caadada qof bini aadana waxa uu sameeyo haddii ay noqon lahayd samaysashada xiriir aan sharci ahayn iyo waliba in caruurteeda hortooda lagu gowraco aabahood arintaasi waxa sameynaya waa gabar la yiraahdo Rasha haddaba sidee arrimahan u dhaceen xagee sheekadan ka bilaabantay sidee dalka Masar walaac ugu abuureen dhacdooyinka noocan oo kala ah kooxihii dambi baarista oo la wareystana waxay yiraahdeen waa noo dhinayd qof damiirkiisa uu sidan oo kale yahay in aan indhaha saarno waliba iska daa qof caadi ah qof lagu barbaariyo diinta islaamka inuu sidan oo kale sameyn karo waxay ahayd waxaan caadi ahayn laakiin marka uu damiirku dhinto dambiyaduna ay noqdaan kuwa aad u badan oo maalinba aad tallaabo hor la qaado wax kasta waxay kula noqonayaan caadi arinta la yaab kale ahayd waxay ahayd ninkeedii oo la dilay dhiig baxaya ilaa iyo 18 midiyood la galiyay qoorta laga jabiyay ayaa nimankii waxa soo sameeyay oo dhan waxay u karisay shaax waxay sidoo kale ay u soo iibisay sigaar kadibna waxa aad loogu qoslay fadhiga dhaxdiisa caruurteediina waa daawanayaan haddaba sheekadan sidee u bilaabatay waxa jiray wiil lagu magacaabi jiray Xuseen Maxamed waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo nolosha ka soo maray harjad xoogan isla markaana caqabad kasta oo ka hortimaada ku jabiya kartidiisa iyo waliba karaankiisa qofnimo isagoo 12 sano jira ayuu la wareegay nolosha hooyadiis iyo caruurtii la dhalatay maadaama aabihii uu geeriyooday waxa uu ka shaqeyn jiray meel ama goob harkaha lagu sameeyo isla markaana lagu waro lagu farsameeyo lagu ridqo kadibna loo bedelo boorsooyinka marka hore ma heli jirin shaqooyinkaasi lacag wanaagsan kama heli jirin waxa uu ka heli jiray kaliya farsamo waxa uu aaminsanaa maalin maalmaha kamida noloshan in ay macno u sameyn karto waayo waxa uu baranayo waa farsamada gacanta isla markaana laga soo saaro agab warshaduhuna ay aad ugu baahan yihiin shaqada ayaa waxa uu noqday wiil ka soo baxay oo aad u yaqaan sidoo kale ma ahayn dhalinyarada aflaanta daawata ma ahayn kuwa kubadda cagta ciyaara ma aha kuwa goobaha madadaalada iyo maqaayadaha fadhiista sababta waxay ahayd nolosha hooyadiis iyo walaalihii ayaa isaga ku tiirsanaa maadaama aabihiis booska uu ka maqan yahay isagana uu yahay qofka ugu weyn ee qoyskooda markii uu Xuseen bartay shaqadan iyo farsamadan isla markaana uu ka kasbaday xoogaa lacag ah isaga ayaa samaystay warshadii uu ka shaqeynayay mid u dhigantay lacag fara badan ayuu helay horumar fiican ayuu gaaray waxana uu noqday mid dhalinyarada asaagii ah ay tilmaansadaan nasiib darro isaga ma ahayn nin waxbarashada aas-aasiga ah aaday oo waxbarashadii iskuulaadka sida caruurta ay maalin walba boorsooyinka u qaataan galaasyadan ay u fariistaan oo kale halkaas isaga tagay hase ahaatee markii uu Maxamed noloshiisa uu meel fiican gaarsiiyay hooyadii ayuu waxa uu sameeyay nolol wanaagsan walaalkiis ayuu sidoo kale shaqadii baray oo noqday nin isna meel weyn iska soo saaray oo macna sameeyay qoyskiisa ayaa aad u jeclaaday Xuseen waxay ku tilmaameen aabaha labaad ee qoyska isaga ayaa caruurka soo koriyay hooyadiina maalin walba ayay u duceyn jirtay sida wiilkeeda uu noqday qofkii ay filaysay sida raganimada leh ee qoyskiisa noloshiisa iyo nolosha walaalihiiba uu u dabaray
markii uu xuseen maxamed helay lacag fiican waxa uu dhistay goobta uu deganaa oo gobolka jiisa ku taala meel kamida oo ka yara durugsan gurigooda ayuu waxa uu ka dhistay cimaarad ama guri aad u qurux badan kadibna waxa uu sameeyay inuu si qurux badan oo guriga isaga ahaa uu u qalabeeyo markuu intaasi u dhameeyo kadib ayaa waxa uu yimid hooyadii xuseen waxana uu u sheegay in uu diyaar u yahay markan inuu guursado laakiin nasiib darro uusan haasawo la lahayn wax gabar ah waqtigiisa oo dhanna shaqada iyo tacabka nolosha uu gelin jiray hooyadiis ayaa aad ugu faraxday hadalka ka yimi wiilkeeda waxaanay u arkaysay in hadda qayb ka mid ah noloshiisii uu xasuustay maadaama inta badan shaqadiisa ay ku tiirsanayd qoyskiisa oo tiisi gaarka ahayd uu hilmaamay laakiin maxaa dhacay xuseen oo xuseen hooyadiis ahayd ayaa baxday waxaanay u tagtay qoys ay qaraabo yihiin oo ay u joogtay gabar aad u qurux badan aqoon ahaana waxbarashada maraysay halka loo yaqaano thani mutawasit ama galaaska labaad ee dugsiga dhexe isla markaana lagu tilmaamayo aadaab iyo aqoon iyo afgaabni iyo wax kasta oo gabar Masar joogta lagu xulan lahaa markii ay hooyadii xuseen ay la kulantay qoyskii gabadha isla markaana wiilkeeda ay u doontay maadaama wiilkan aad looga yaqaan xaafadda ahaana nin dhalinyaro ah oo ku wanaagsan nolosha iyo tacabka iyo wax walba oo ay dhalinyarada hiigsan lahaayeen oo kale qoyskii gabadhaas oo rasha lagu magacaabayay ayaa ogolaaday in gabadhooda ay wiilkan siiyaan maadaama aysan ahayn inay meel cidlaa gabadhooda ay dhigayaan hasaatee gabadhan rasha la yiraahdo uma qanacsanayn mana ku qanceen waxa ay sameynayaan qoyskan sababtu waxay ahayd hal arin oo kaliya gabadhan waxay leedahay wiilkan aniga ima qalmo kufkeena ma aha sababtu waxay tahay isaga ma soo baran waxbarasho ah iskuul ma aadi jirin dhalinyarada asaagiina ahna sida ay u dhaqmayeen uma dhaqmin oo nin la fahmi kara ma aha hasaatee rasha qoyskeeda ayaa la fariistay waxay isku dayeen inay aad ula hadlaan waxay ku tilmaameen inuu yahay wiilkan wiil wanaagsan wiil shaqaysta wiil diin leh wiil dadnimadiisu ay aad u wanaagsan tahay marka xagal kasta laga fiiriyana aan wax ceeb lahayn waxa lagu yiri ilaahay uga cabso nimcada ku soo doonata lama dayaco hasaatee markii ay qoyskeeda aad dhinacyo kala duwan ay ka fiiriyeen hadalkana dhinac kasta laga tusay waxa ay tiri waan aqbalayaa laakiin shardi waa in la ogolaado waa la isoo doontay idinkana waad ku qanacdeen wiilkan laakiin aniga hal la ii ogolaado inaan waqti siiyo si aan bal xaaladiisa noloshiisa iyo faham badan aan uga qaato maadaama isaga iyo aniga aan nahay dadka nolosha wadaagaya idinkana aad ku koobnaa doontaan kaliya inaad qaraabo noqotaan hadalkii lagu yaqaan gabar caqli badan oo si hawtul hamaga aan isaga tuurin jarar dhaadheer marka la yiraahdo guur baad galayso oo si degdeg ah u aqbalayso mararka qaar qofka meesha uu galayo waa inuu iska xaqiijiyo taana rasha qalad kuma lahayn laakiin qaladka waa mid ka soo socda muddo 3 sanaad ayay wada haasaawayeen oo maalinba la wada hadlayay xuseenna waxa uu maalin walba siinayay rasha waxyaabo qaali ah mararka qaar dahab buu siinayay mararka qaar waxa uu siinayay lacago waxa uu isku dayay in uu soo jiito laakiin iyada taasi ma ahayn in ay aqbalayso hasaatee waxa ay sameeynaysaa jacayl dhalanteeda si ay qoyskeeda iyo xuseen maxamed ba ay u qanciso sanadkii 2018 oo dhan ayaa sida lagu jiray sanadkii 2019 ayaa haddana sida ku dhamaaday sanadkii 2020kiina waa u galbaday 3 sanadood kadib waxa ay qoyskii iskula soo laabteen rasha iyo maxamed iyagoo dhahaya hadda waan isfahanay waxaan diyaar u nahay in caruuskeena la abaabulo isla markaana xafladii safaafka ama gurigeynta la sameeyo xafladii gurigeynta waa la sameeyay xuseen maxamedna waxa qalbigiisa buuxiyay jacayl oo rasha u qaaday maadaama aadaabteeda dhaqankeeda
iyo waliba sida ay u nooshahay ay aad ula tacajabay hasaatee iyada qalbigeeda ma aha mid caadi ah waxa ku kaydsan sun mariida hadduu ogaan lahaa waxa dhici doona maanu guursadeen waxay muujisay wax kasta oo jacayla bishii koowaadba uray qaaday labadoodii uray isu qaadeen waxaana u dhashay wiilkoodii koowaad oo lagu magacaabay xasan maadaama isaga xuseen ahaa wiilkiisii koowaad xasan ayuu bixiyay bil kadib wiilkan markii uu dhashay uur ayay qaaday waxa uu dhashay wiil kale oo la yiraahdo cabdiraxmaan 2 sanadood oo jacayl ah oo 2 wiil oo qurqurux badan ay ku soo biireen ayaa qoyskii meesha u yimid laakiin cidda wax jacayl oo kaliya waa xuseen ma aha rasha uurkeeda wax kale ayaa ku jira 2 sanadood kadib markii ay wada noolaayeen ayay uur kala qaaday waxna ay dhashay gabar la yiraahdo tuqa kadibna wax kasta oo noloshii ahayd ayaa isbedelay waxay ka fogaatay noloshiisa guriga waa lagu wada nool yahay wax raashin uma sameynayso dharkiisa looma dhaqayo sariirta uu ku jeefanayo looma hagaajinayo isagiina qol lalama tegin dhowr jeer oo ashtaka ah waxa ay dalbatay in guriga la burburiyo oo ay kala tagaan maadaama aanay wax dareen iyo jacayl ahba ninkan aysan u hayn hase ahaatee 3 sano ama 4 sano ay 3 cunug ku dhashay iyadoo ku jirtay nolol ay ku tilmaantay mid cadaaba qoyskeedii ayaa ku qayliyay isagana waxa uu garawsaday haddii uu gabadhan furo in 3dan caruur ay ka dayacmayaan sidaas darteed wax kasta oo nolol ah oo iyada kala dhaxaya ayuu meel iska dhigay hawsiin jiray biilkooda wax kasta oo noloshiisa ku saabsan isaga ayaa dabaran jiray noloshii rasha iyo xuseenna mugdi weyn ayaa hareeyay hase ahaatee arrintu marka ay sidaas ahayd oo ay ka fogaatay ninkeedii laakiin guriga lagu wada nool yahay waxa ay bilowday in ay dhex mushaacdo aaladaha baraha bulshada Facebook TikTok Instagram Snapchat iyo wax kasta oo dhalinyaradu ay ku madadaashaan ayay gashay waxa ay bilowday inay ka hadasho group-yada halkan waa meesha balaayada ay ka soo socoto haddii aadan fahmin mararka qaar waxa aad gacmahaada ku samaysanayso waxaad ogaan lahayd ama kugu dhacaya halkii balaayada noloshadu ay ka bilaaban lahayd maalin maalmaha kamida ayaa iyadoo qoraallo ku dhex sameynaysa group Facebook ah waxa ay qoraal ku qortay Facebook kadibna maalintaasi waxa qoraalkaasi ka soo jawaabay mid kamida raggii halkaasi joogay oo lagu magacaabo Maxamed Saciid nin account-kiisa uu ku qornayd Maxamed Saciid ayaa jawaab soo dhaxmartay waxa la bilaabay labadii account in la isku darsado kadibna waxa la bilaabay in la sheekaysto waxa uu sheegay in uu wiil leeyahay xaaskiisina uu furay iyana waxay kaga warantay noloshooda habeen iyo maalin dharaarba dharaar wixii sheeko la wadaago waxa la isku sheegay in la isjecel yahay mararka qaar baraha bulshada waxyaabaha ay keenaan oo sababta u noqda qoysaska in ay burburaan dambiyadana faraha loola galo muddo dheer oo wada hadal kadib waxa la sheekaystaba waxa la gaaray in rasha ay ka codsato ninkii Saciid ahaa in ay kulan isugu yimaadaan ugu dambeyntii waxa lagu kulmay kulan halka loo yaqaan Shubra oo jiisa ka tirsan oo wadanka Masar labadoodii waa sheekaysteen waa la isku calool waramay waxay tiri xabsi baan ku jiraa nin jaajaman oo waxa uu galo iyo waxa uu gudo aysan lahayn ayaan geed ugu xiranahay isna waxa uu sheegay inay tahay gabar aad u qurux badan oo aysan u qalmin in ay xabsi sidaas oo kale ku jirta waa hadal macaan laakiin guntiisu aad u fog yahay halkan waxa ka bilaabmaya xiriir aan sharci ahayn xiriir diintana ku xun dhaqanka Masarna ku xun dhaqanka suuban ee dadka wanaagsanna ku xun wada sheekaysigii waxa uu socdo maalin maalmaha kamida ayuu waxa uu geeyay reerkooda
waxa uu sheegay gabadhan in uu guursan doono. reerkooda ayuu been u sheegayaa oo gabadha uu wado waa rashadii la qabay ee reerka lahayd ee waliba saddexda caruur lahayd ee ninkeedii samirka badnaa oo wax kasta uu sameynayay. kadib marna gurigeeda ayay timaadaa ayay keentaa, marna meelaha kale ayaa lagu kulmaa. xitaa mararka qaar waxaa la sheegaa in ay wax aan wanaagsanayn wada samayn jireen. laakiin ninkii odaga ahaa ee xuseen maxamed ahaa ee gabadhan ay u dhaxday ma oga xaaskiisa waxa ay samaynayso. ugu dambeyntii maxaa dhacay? wada hadal dheer kadib waxay u sheegtay in la joogo maalintii ninkan xuseen maxamed ahaa adduunka la dhaafin lahaa oo isaga dhanba noloshiisa la soo gabagabayn lahaa. waxa ay siisa furaha gurigeeda iyo furaha qaybta ay dabaqa ka degan tahay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa xuseen waxa uu ka baaqday shaqada. waxaanay u sheegtay maanta inuu shaqadii ka baaqday oo warshadii uusan aadin, laakiin uu jiifo. waxay tiri waqtigiisa markii uu hurdo kadib ayaan kuu sheegayaa ee diyaar garow sidii ninkan maanta adduunka loo dhaafin lahaa. waxa uu u yeeray saaxiibkii Cream, ninkii Maxamed Saciid ahaa ee waxa dili doona ama ninkan Xuseen qaarijin doona. kadibna waxa uu ku yiri diyaar garow, hawl ayaad ila soo fulinaysaa maanta oo gacalisadeedii geedka ku xirnayd ayaa ninkii aan u qalmin dunida dhaafinaynaa. Creamna waa iska aqbalay taladii maadaama dhalinyaradu si hawtulhamaga ay u sameynayaan. aan dib ku celiyo, Maxamed Saciid ma aha nin yar, waa nin 42 sano jira. 43 sano ayaa laamaha dambi baarista jeesa jooga waa Masar ay ku qoreen diiwaankiisa faylka laga buuxiyo arrintan. waayahay arrintu markii halkaas maraysa, Rasha waxay wacday Maxamed Saciid. waxay ku tiri hadda waa uu jiifaa, waa xilliga hawsha la fulin lahaa. si tartiib ayuu albaabkii banaanka isaga soo furay, kii guriga ay degan yihiinna isaga soo furay. kadibna waxa uu u gudbay qolkii uu jiifay ninkii odaga ah Xuseen Maxamed ahaa. kadibna bir weyn uu watay ayuu madaxa kaga dhiftay. ninkan oo ku jira hurdo aad u macaan ayaa mar kaliya ku soo salalay jugta iyo dhibaatada ku dhacday. kadibna waxa uu bilaabay inuu iska caabin sameeyo. labadii nin ayaa dhinacyada ka maray, waa la dagaalamay. muddo 7 daqiiqo kadib dhulka ayuu ku dhacay. ninkan Maxamed Saciid ahna waxa uu la soo baxay mindi jeebka ugu jirtay. 18 meel ayuu uga duray ilaa iyo nafta meel yar ay ka gasho ama ay kaga soo arto. iyagu waxay u maleynayeen inuu dhintay, laakiin isaga ma dhiban. laakiin maxaa dhici doona? wax yar kadib waxay soo fariisteen goobtii fadhiga. qolkii ayuu ku dhig baxayaa. meeshii ayay sigaar ku shiteen oo waxay bilaabeen inay sigaarka iska cabaan. Rasha ayaa jikada gashay, waxay u keentay xalawiyad iyo waliba waxyaabaha shaaha oo kale. halkaas ayaa lagu wada qoslay. kadib waxay soo jeedisay sheekadan in la ogaanayo xaalkana meel adag uu marayo. hase ahaatee waxay tiri lacagtana qaata, dahabkana qaata, telefishinka fadhiga noogu xiranna furta, iska baxa si loogu maleeyo intuuga ina soo weerartay oo kale oo kiiskaba halka uu ku dhamaado. marka ay baxeen ayay baxday. ninkii Xuseen ahaa isku dul xirxirtay, dhiiggiisii bay ismarmarisay. wiilkeedii yaraa ayay u yeertay oo isaga dhalay oo la yiraahdo Xasan Xuseen. kadibna waxay ku tiraahday qoyska dariska u tag, albaab ku garaac, u sheeg inay noo soo gurmadaan. wiilkii ayaa baxay. albaab gabar ka soo horjeedo oo Maajid la yiraahdo ayuu ku garaacay. wuxuu ku yiri kaalaya nacaawiya. wiil yar oo aan la fahmi karin hadalkiisa, luqadda uu ku hadlayo dadku aanay aad u garan karin. laakiin Maajid oo dariska ahayd waxay dareentay wax uun inay qaldan yihiin. way soo baxday, guriga ayay soo gashay. waxay aragtay Rasha iyo Xuseen oo isku xirxiran, dhiig badanna uu qulqulayo. way anfariirtay, way qaylisay. dariska ayaa isku soo baxay. kadibna waxaa loo yimid goobta. waxaa la eegay sida ay wax u dhaceen. isla markiiba booliska ayaa la wacay. rubuc saac kadib booliska ayaa yimid. qoyskii Rasha iyo qoyskii Xuseenna waa yimideen. isla markiiba gabar Xuseen la dhalatay ayaa qayladaan afka furatay. waxay ku catowday
allah haddii aan ogaan lahaa inay iyadu dilayso waa laga furi lahaa. haddii uu noloshiisa ku waynayo xuseen waxaan samayn lahayn rasha qoyska waan ka saari lahayn. walaalkay iyadaa dhagartay iyadana dishay. booliska ayaa bilaabay baaritaano kala duwan inay sameeyaan iyo kooxaha taxqiiqaadka ijraa'aadkii kala duwanaa ayaa la maray. waxaana la ogaaday rasha inaanay wax dhiba ku oolin, laakiin xuseen 18 meel midi looga duray qoortana jaban tahay. hase haatee markay booliska yimaadeen naftiisii ugu dambeysay ayaa baxday, halkaas ayuuna ku dhintay. waxaa la bilaabay baaritaan kala duwan. iyadaa su'aalo la weydiiyey iyadoo aan fariirsan waxay tiri 3 nin baa albaabka soo garaacay, waan ka furay, waxay ii sheegeen inay yihiin shirkadda gaaska oo guriga cillad ay ka dareemayaan. kadibna waxay bilaabeen inay nahandadaan, waa dileen xuseen oo iska caabin sameeyey. anigana waa kuwa sidaa ii galay. marka telefishinka waa qaateen, lacageena waa qaateen, tuuga ayaa sidan noo gashay. waxaa la bilaabay in dadka la wareysto. dadkii waxay sheegeen inaanay wax qayla maqal iyo wax dagaalamayaba, oo haddii qof lala dagaalamaya kan kale uu qaylin lahaa. booliska halkan tuhun ayaa ka galay. kadib waxay wareysteen mid ka mid ah dadka deegaanka oo yiri waxaan arkaya 2 nin oo baxay gurigana soo galay oo telefishinna wata, laakiin aniga umaanan haysan buu yiri inay tuuga yihiin. oo waxay iska ahaayeen 2 nin oo socota, midna boorso waday midna telefishin buu waday. qofkan waxa uu sheegay 2 nin, raashana waxay sheegtay 3 nin. halkan dambi baarista waxay ka dareemeen in ay wax qaldan yihiin. kadib waxaa hadalkii gabadhii la dhalatay xuseenna waxaa la ogaaday inay iyada leedahay qayla jirtay oo labadan ismay fahansanayn, oo walaalkay iyada ayaa mishintay. tuhun kalena waa la qabtay. sidaa daraadeed raasha waxay noqotay qof tuhmanaha koowaad ah. baaritaan kale ayaa la sameeyey oo caruurtii baa la wareystay, waxayna sheegeen 2 nin inay tahay. kadib booliska waxay bilaabeen baaritaano dhacdooyinkii meesha ka dhacaya DNA-geedii la aruuriyey. kadibna rasha oo tuhmanaya koowaad ah iyo meydkiiba waxaa loo qaaday xarunta dambi baarista ee jiisa. maxaa dhacay? markay wax walba ay su'aalihii ay furmeen, rasha waxay u sheegtay waxaan inay iyada ka dambeysay, isla markaana ay u samaysan ninkan inaanay jeclayn oo kaliya. arinta waxaan sameeyana ay tahay maxamed saciid ayaa la soo qabtay, rashana waa la soo qabtay, ninkii falka qaybta ka ah creamna waa la soo qabtay. caruurtii ayaa halkii lagu wareystay, wax kastana waxay noqdeen wax cadaaday. maalintaas ayay noloshoodii soo gabagabooday. laamaha ammaanka ee wadanka Masar waxay u gudbiyeen maxkamadda. waxaa la saaray maxkamad, waxaa lagu xukumay dil oo waliba ah in la daldalo. 2 nin ee falkaasi ka dambeeyana waa la soo gabagabeeyay. ninkii daacadda ahaa caruurtiisii waxay noqdeen hooyalaan iyo aabbalaan, waliba waxay la noolaadeen mustaqbal madow oo aad murugo u leh. waxay arkeen hooyadood oo ka shaqaynaysa dambi aan wanaagsanayn. maalintaasi waxay Masar kiiskan ku tilmaameen kiiskii bilaa dhaqanka iyo naxariista ahaa oo ay ku kacday gabadhan. waxay kula tahay sheekada in laga fahmi karo. soo dhawaada.